subaxnimadii talaadada ee 21 Oktoobar 1969 saacadu markay ahayd 3 aroornimo waqtiga Muqdisho kuna beegnayd 24 saac kadib aaskii madaxweyne Cabdirashiid Cali Sharmaarke ayaa ciidamada militariga iyo kuwa booliiska iskaashanaya waxay qabsadeen dhismayaashii muhiimka ah ee dawladda ee ku yaalay magaalada Muqdisho waxay la wareegeen idaacaddii reediyo Muqdisho iyo jidadka waaweyn ee ka baxa ama laga soo galo magaalada haddaba maxaa soo dadejiyay afgambigan sidee ayaase loo qorsheeyey aynu dib ugu laabanno sanadkii 1967 iyo doorashadii madaxweynenimada Soomaaliya bishii Juulaay 1967 waxaa xilka wareejiyey madaxweynihii hore ee Soomaaliya Mudane Aadan Cabdulle Cismaan oo uu doorashada kaga adkaaday ra'iisul wasaarihiisii Cabdirashiid Cali Sharmaarke waxay ahayd taariikhda Afrika markii ugu horeysay ee madaxweyne uu si nabadgelyo leh u wareejiyo xukunka inta doorasho looga adkaaday sida ay qoreen taariikhyahanada Soomaalida waxaa farxadda xil wareejinta nabadgelyada ku dhacday garab socday aafooyin kale oo ay ka mid ahaayeen musuqmaasuq ku shubasho iyo qabyaalad binjaha goynaysay dimuqraadiyaddii curdinka ahayd tusaale ahaan waxaa la sheegay in doorashada ay isku soo taageen ilaa 86 xisbi oo badankooda la sameeyey intii ay doorashadu socotay dhammaantoodna ka soo farcamay saddexdii xisbi ee Somali Youth League, Somali National League iyo Somali National Union Cusmaan Maxamed Jelle waxa uu la shaqaynayay wasiirkii arrimaha gudaha Yaasiin Nuur Bidde oo qaabilsanaa doorashada waxaana uu ku sugnaa taliskii booliiska oo lagala socday doorashada waxa uu iga sheekeeyay musuqmaasuqa doorashada ee uu isagu indhihiisa ku arkay waxaan goobjoogaha waxyaabihii dhacayay oo cabashuurina oo goobaha codbixinta ka imaanayay haddaan tusaalaga kuu soo aado Yaasiin Nuur xasan u naxariistee degmada Jahiima lagaa ayuu gaalkaayo ka gooyey si mataqaanaa kursi gooniya loo siiyo waxaa doonay inuu iska garab xisaxo nima alaaba ahaayeen aada xuseen gusaa la dhihi jiray ninkii iyo dadkii u batay intii anay magaalada gaarin ayaa amar lagu siiyey in anay magaalada soo geli karin si kastoo ninkii u dacwooday taad buu noo soo dayay waa noo yimid guddigii baa ka fadhiyey haddee wasiirka gudaha ayaa noo ah guddoomiye waana ninka meeshiinu kadib ka soo geli doonayo sababa baad la socotaa in loo digay baydhabo inuu xataa liiskii doorashada gudbiyo laba nimo odayaaloo ka horeeyey oo ahaayeen shuhada jamaal allahu naxariiste oo xisbiga SNC lagaa madaxu ahaa jiray iyo abdeeja xaaji xuseen iyagana waxa la go'aansaday inay soo gelin baarlamaanka taasoo kaliftay inay axzaabtooda laba meelood ka kalaxaan abdeeja xaaji xuseen waxaa laga rajaxay galoowe iyo galkaayo haddii meel looga adkaado sidaanu meesha kale u siigin shuhada jamaalada beledweyne iyo buulaburto qodobkan musuqmaasuqa waddanka ka jiray ayaa haddaba noqday kan ugu weyn ee gundhiga u noqday inay isku yimaadaan koox saraakiil militari iyo booliis ah oo ay damcaan inay talada waddanka la wareegaan waxay ahayd arrin ku qancisay saraakiishii inaysan dimuqraadiyad wanaagsan aysan ka jirin dalka sida uu sharaxayo Axmed Suleymaan Cabdalla oo ku magac dheer Axmed Suleymaan Dafle waxa weeyaan horta dimuqraadi kama jirin waxay ahayd fawda waxaanay ahayd qabiil waxa keenay 88 bay ahaayeen sidaan anagu tirada ku ognahay xisbi waxay ahayd 88 qabiil bay ahaayeen nin walba intuu geesiisa isu taagay iyo qabiilkiisii la baxay oo uu doonay inay doortaan waxay noqotay inaynu dib isu eegno sidii aynu baadiyaha berigii hore aynu ku ahaan jiray oo innagii aynu iska horjeesano oo dagaalano waa gartay wax yar iga tilmaan marka dhibaatooyinkii jiray markaad hoos u sii gasho xilliga ka hor intaan militarigu talada la wareegin dhibaatooyinku waa badnaayeen waxa weeyaan horta budgetku wuxuu ahaa 290 milyan buu ahaa wuxuu fund u isticmaalay caynkaas ah oo wax la yiraahdo political fund 54 milyan baladaday oo aan wax allaale waxay dawladu qabteen wax allaale waxay tacliin u qabteen wax allaale waxay meel u qabteen aanay jirin rag uun la siiyey oo isagu siyaasiyan maaragta wax kaga